قال قفول أيان شقاليسين مشاهركي ماشي ياله أيان وحنا كل قيمة المشاهرك dagaalka baraha bulshada ee labada wasiir ee boosaska isu bedelay waa wasiir Xamza oo wasaaradda gargaarka hore uga shaqeynayay haddana ah wasiirka ciyaaraha iyo wasiir Khadiija oo hadda maamulaysa wasaaradda gargaarka horena u soo noqotay wasiirkii ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dagaalkooda afka wax uu baraha bulshada ka dhex bilowday shalay kadib markii wasiir Xamza uu sheegay in markii wasaaraddaasi loo dhiibayay ciyaaraha aysan lahayn xafiisyo lagu shaqeeyo balse kaliya ay jireen sida hadalku uu dhigay shaqaale ka shaqeeya wasaaradda oo aan soo xaadirin misna mushaar qaadanaya wasaaradda aan xafiis leen habeenkii lagu wareejiyay dadaan weydiiyay waxaan inta wasaaradda inta xarunta ee xarun malaali inta ku shiraan hotel mise guriga ku shiraan ali waxyaabo khaldaadkan ka hadlaya meesha budgetka marka budgetka naftiisa wuxuu u baahan yahay muddo in la qorsheeyo la sida raadiyo la codsado marka means waqti badan loo helin وزارة أو جوري كشريس أما وزارة محلي هذا أو أن حفيظ هو إلى مر هوتيلز كجرا شقالي وحن أوجد تجي وزارة سند يبر لبسنا شقالي فسح كجران ومشارس قاعد جوريوس كجوان hadalkaas ayaa baraha bulshada ay ku xiriirta qabsaday misna noqday hadalkii ugu saameynta badnaa toddobaadkan ee la isla dhexmaro barta Facebook tani waxay durba dhalisay in wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya barteeda ay soo dhigto qoraal ay kaga falcelinayso hadalka wasiir Xamza weerarka kaliya inta kuma koobneen oo ilaa xalay waxaa jiray dhalinyaro fara badan oo wasiir Xamza weerar dhanka baraha bulshada ku soo qaaday kuwaas oo u muuqanayay in wasiir Khadiija ay la safnaayeen dagaalkaas iyo xoogeysanaya ee baraha bulshada ee ka dhaxeeya labada wasiir ayaa noqday mid barta Facebook la iskula wadaago qoraalada iyo sidoo kale muuqaalka wasiir Xamza ay isdhaafsadeen inkastoo wasiir Khadiija muuqaal arrinka ay kaga hadlayso aysan soo dhigin barteeda Facebook haddana waxaa jiray qoraalo dhowr ah oo wasiirka ay kaga jawaabaysay hadalkii wasiir Xamza iyadoo sidoo kalena wasiir Khadiija mararka qaar la arkay in barteeda Facebook ay u isticmaalaysay qoraalada wasiir Xamza ku socda ee looga soo horjeedo in iyana ay ka falcelinaysay arrinka oo muujinaysay raali ahaansho arrinkaasi ku aadan wasiirka ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Saciid Xamza marka laga tago muuqaalkii shalay ee uu shirka jaraa'id qabtay ma jiro falcelin kale oo uu sameeyay laakiin arrintaa waxay sii kicisay dhalinyaro fara badan in isagu ay ku weeraraan aragtidiisa ku aadaneed in aysan jirin xafiis marka uu tagay wasaaradda ciyaaraha ay lahayd wax heshiis ah oo laga gaaray ilaa ay hadda ma jiro eedeymaha labada dhinac mana jiro cid isku dayaysa inay kala dhex gasho xiisadda si laba kacleynaysa ee labada wasiir balse waxaa suuragal ah in si iskeeda isaga istaagto laakiin su'aasha la isweydiinayo ayaa haddii dadka ku badan barta YouTube-ka uu dagaal ka dhex qarxo waxaa jira meel ay u laabtaan oo aan kala jeedo in ay leeyihiin rag caan ah oo kala dhex gala dagaalada isla markaana dejiya laakiin labadan wasiir yaad is leedahay waa ay kala dhex gali karaan oo dagaalkooda si nabad ah ayay ku soo afjari karaan